عندما بانجي جوبنا وممكن حريق وجهي بران عاوج مثلا قلت عندما بانجي سوقر لأنه مش سوقر gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Mudane Cali Jeyti Cismaan iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray qaar ka mid ah deegaanada u dhaxeeya Ceel Baraf iyo Ceel Dheere Buraale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kaabigana ku haya xagta kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isla markaana dhawaan lagu xureeyay qawaarita arxanka daran argagixisada Al-Shabaab ujeedka socdaalka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan oo ku gaaray deegaanadaasi ayaa ku saleysnaa sidii uu soo galmin lahaa kolaya gaadiid iyo ciidan oo horkacaya xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana deegaan doorashooyinka taageer mudug kaas oo safar dhanka dhulka uga soo kicimay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya soo gaaray furumaha hore ee dagaalka deegaanada Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ku kulmay deegaanada u dhaxeeya Ceel Baraf iyo Ceel Dheere Buraale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyra Makaraan oo bilihii ugu dambeeyay ku sugnaa furumaha hore ee dagaalka deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe looga saarayo qawaarita argagixisada Al-Shabaab iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan oo isna hormuud ama hogaamiye ka ah howlgalka dib u xureynta qawaarita looga saaray inta badan deegaanada gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa si wadajir ah u sheegay maanta wixii ka dambeeyay isku furan yihiin isku socodka bulshada gobolada dhexe iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana sheegeen qawaarita Al-Shabaab inta badan laga saaray gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe deegaanada Farakutiriska way kaga sugan yihiin ayagoo iskaashanaya laga saari doono maalmaha soo aadan وشقة آد بيرها شوق بطي لبضا اللي نحبا هي لبضا قوال با مدد روحان كتامينين لبضا قوال سفر عنه قايد كيدو عن ماشا ربطيكا وقلوين تيكا وقوال كشبالها حيماتا ومالك السعام تيكا وحان رجيهنا الففارة إلهي مارتا ونورهم قيب كمدا قيبها كارينتنا هدو إلهي رادو وينوضا ما يسير من دوران مالك السيئة ماشا يجوغان iyo gobolada inta kale ay ku jiraan oo diriska ka meeli doona dadka maartay inta ku jiraan goboladaas kale inta gudoomiyaha saaxiibkay iyo aniga muddo badan duqaal lagu jiray walina joogda waa lagu jiraa lagana bixi ma intay joogaan ayaga qayb ka mid ah waxaan ku faraxsanahay inaan maartay safarkii dheeray oo ku jirna maalmahan iyo bilaan ku soo jirnay ina aniga iyo saaxiibkaas safarka soo waday amaanta meeshaas ugu nimid birina meel kale isugu tigi doonaa ilaa meel kastaas la tagnaan hadduu ilaahay yidhaahdo halganka waa sii wadayna labadeenoo garbaa iska heysana ninbaa keliya ciyaarta la yidhaahdo wilisqaba marka xilligabaale indan baanji joognaa oo intiina xariga ugu jiray baraan caawaj مثلا قلت indan baan isu soo gaar lehna misu soo gaar laakiin xaqiiqada jimicsiga runtahay xaggu jira barigu jira jimicsiga runtaa haddii laysu yimid oo gacmaha laysu soo taagtay iyo haddii dadkii dhulka lahay dareemeen oo khiyaaligii inuusan shaqaynayn ay fahmeen ay wax ma dareemaan me waa maxaa mushkilada rumayba ka dhigeen waxay moogtaadi run maaha oo dadkii dhulka lahay waa karaan shabaab waa dilaa fayras ah intuu ku jiro dalka iyo dadka dhexdiisana nolol dadeed ma jirto intaasaa ballankeedu yahay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaanka federaalka saaxiibkay Jacfar oo safar dheer uga yimid magaalada Muqdisho una socda koonaha ugu dambaysa xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaana safar dhanka dhulka uga soo kicimay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa si wadajir ah ugu mahad celiyay maamulada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo bulshada labada gobol sida isaga dul qaadeen qawaarita argagixisada Al-Shabaab ee baneysatay dhiigga iyo maalka shacbiga Soomaaliyeed waxaana uu sheegay xildhibaan Jacfar in maalintan maalinteeda kale uu rajaynayo in gobolada Hiiraan Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud oo xur ah ay ku kulmi doonaan furumaha hore ee dagaalka waayadan waxaan u maleynaa ma dhicin safar inta ka soo baxa xamar soo maro Shabeellaha Dhexe oo Hiiraan mara oo Galgaduud u gudba إلهي ما
suuqgeliyey ayada wax shida ah iyo wax dhiba iyo wax aysan jirin oo si nabad ah ku soo wada marnay ayaga iyo maantana aan joogno inta u dhaxaysa Ceeldheere iyo Ceelbaraf aan rabno inaan isu gudbino ilaa aadiya rabbiyaaleena amaba marna isku warsan doono iskala sii gudbi doono hadaalena inta ka shaqaysay marka oo ciidamada ah oo waxgaradka ah oo dawladda ah in nabadaas la isku dhex maro oo intaas ayagana ugu mahadcelinaynaa shaqada xooggan ay soo qabteen waxaana rajaynaynaa shabaab maanta ka dambeeya inuusan ummadda inta dadka deegaanadan joogta oo ay ku kala dhex jireen inay isfahmaan ay diidanaayeen ayaga kuma taagna ayaguna waa kasii bixi doonaan inta hadda laga soo baxsan waxaan rabnaa in nabad iyo horumar ay gudubto marka waxaan rajaynayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maalintada kale inaan meeshaan isku warsano annagoo Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay ee mas'uuliyiin dawladeed oo isugu jira saraakiil iyo xildhibaano heer federaal iyo heer dawlad goboleedba ay safar dhulka uga soo kici tibaan magaalada Muqdisho isla markaana ay ku soo gaaraan deegaanada ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana arrintan ay ka dhigan tahay in kooxda qawaariinta argagixisada Al-Shabaab ay ku jabeen howlgallada lagula dagaalamay ka socda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe